بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إلهي سبحانه وتعالى waxaa uu qur-aanka ku tilmaamayaa dadka bini aadamka ee dunida joogaa inay imtixaaman yihiin, la ibtilaynayo, kadibna la eegayo ibtilaaga inay ku guulaystaan iyo inay ku guuldaraystaan. waxaa ilaahay tusaale inagu siiyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun qaala innii jaaciluka linnaasi imaama qaala wamin durriyatii qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin. ilaahay wuxuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay, waxaad xustaayo dadka uga warantaa id ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat. nebi ibraahim alle subxaanahu wa tacaala markuu itixaamay ee ku itixaamay bikalimaatin weedho. weedhahaasi nebi ibraahim lagu itixaamay wax ka mida qur-aanka tilmaamay bay culammadu yidhaahdaan. ay ka mid tahay in dadkii ugu dhowaa diinta ka qaadan waayeen oo aabbihii diiday. ay ka mid tahay qoomkiisii in markay diideen uu dacwadda in badan u sheegaya inay isku dayeen inay gubaan, oo ilaahay ka badbaadiyey subxaanahu wa tacaala. ay ka mid tahay in lagu itixaamay inuu dhal waayo oo uu ilaahay baryo isagoo da-oo gaboobay ilaahay ilma siiyo, haddana ilmihii la amro inuu gowraco. weliba waxaa la amray wakhti ah wakhtigu falamaa balaqa macahu sacya baa ilaahay markii uu soo gaadhay inuu xoojin karo oo la caawin karo oo la shaqayn karo, markaasaa lagu yidhi gowrac. wiilkii isagana waxaa lagu itixaamaya hal uu gowraco, wiilkiina waa aqbalay. odaygii aan ilmaha kala lahayn ee culummadu yidhaahdaan isagoo 80 dhaafay buu ilmaha dhalay. ilmihii iyo markaasi ah qof waxtara oo wax qaban kara ayuu leeyay, yaa bunaya innii ara fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada tara. wiilyarahaygiiyow, waxaa riyo laygu tusiyay anigoo ku gowracaya, ee maxay kuula muuqataa? wa ru'ya alambiyaa'i waxyi, ambiyada riyadooduna waa waxyi. saasaa lay waxyooday buu leeyay, ee maxay adigana kula tahay? ilmahan la itixaamaya ilaahay ku itixaamaya inuu aqbalo in la gowraco, isna in la gowracaa buu aqbalay. qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin. aabba wixii lagu faray buu leeyahay yeel, waxaad i heli doontaa aniguna anoo kuwa sabra ka mid eh. idan ibraahim ilaahay baa imtixaamay oo wuxuu ku itixaamay ilmo la'aan. kadib baa haddana la itixaamay markii ilmo la siiyey, oo ilmuhu markuu aadka u yar yahay waaba laga sabri karaa ee qof shaqaynaya uu noqday ayaa la yidhi gowrac. ilmaha yar laftiisana waa la itixaama, oo waa qof tale laga weydiiyo in la leeyahay in lagu gowraco ka waran, oo isna gowraca aqbalay. ilaahay markaa wuxuu leeyay falamaa aslama
markay hoggaansameen labadooduba watallahu liljabiin أو لنا عدوك أودقي أي إلهي سبحانه وتعالى ودواقي أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا مركاسا إلهي ودواقي ولا لي إبراهيم ريادي وكر شاكتي في الله كفري سيدي دي بعض قصة بعضا إبراهيم امتحانات بضبه قلي وإنه في جروده إن المهيسي ليلة هذا قورع إن دبل قريده وحاصل امتحان مركو سوق لي كذب ayaa ilaahay wuxuu leeyahay faatamahunna wa tamaam yalay waa dhamaystiray wixii imtixaan la mariyay si fiican buu uga wada jawaabay aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wa ibraahim alladhi waffa ibraahim kii oofiyay wax kastoo lagu imtixaamo wuu dhamaystiray qaala innii jaaciluka linnaasi imaama markaasaa ilaahay wuxuu nebi ibraahim ku yidhi maantaan kaaga dhigayaa dadka imaam ulhuda nebi ibraahim keligii baa imaam ahaabay umma ahaabay culammadu yidhahdaan kaana ibraahiimu umma liwaxdi keligii waxay dhahdaan afcaalu الصaalixaat lilumma ummadii wixii ay camal suuban samayn lahayd oo dhan baa keligii lagu ururiyey إلهي سبحانه وتعالى منزلة سوسي نبي إبراهيم مرو جوغو بوسكي أبا المرنت بو عطسك يا صديق عطسكي سوى محي وهو من ذريتي إله قوة عندنا ينا أئمة كدك إلهي وحوق جوابي لا ينال عهد الظالمين أنا قبل لنكي مقادو انت ظلم سميسي يعني إلهي سبحانه وتعالى قرابة يا نسب لما وداقنه عد في عمو كحريه هدي سجل بينيو هدي سجل تشكي سل الراعي وايو كبحين ما يصير نبأ دالي يا نبأ قبه يا نبي بار مطلع يمد نبأ وحكوا بحين هي إيمانك أجينا قصو قنتي وكل قنتي وإلهي سبحانه وتعالى ودواتي ولذلك بقى إلهي في سورة التحريم لحد مربا إلهي كقورما يا سورة داس لبوا لوانين إياه لبنا تصالح في عما لقد إياه لبنا تصالح با إلهي كتلمام إياه لبوا لوانين إياه يا عائشة يا حفصة والنبي وغبي عليه الصلاة والسلام عمر يا أبي بكر ندلين أيا للي هدا حمها السميسان قوليسن ميسان ولو حاسسك النبي تهين ولو أنا أبي بكر يا إنا عمر تهين إنا عمرنا وحكوه لميسد إنا أبي بكرنا وحكوه لميسد هدا تشك ديدو صحة لبتنا إلهي سورة بسودة واللي حدا دمر قولها الله لبنا وحل الشيء إن يحقق السجنان وينكوا إعداد لبن نبي قبيل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي سبحانه وتعالى وحلي وحط صالة ليدين كندقيا لبدي هوانها اي قبين لبدا النبي نبي نوح يا نبي لوط دبتنا جدكي نبي لوط يا جدكي نبي نوح بيكوي عدين انت هوكتي يا اهل النار كابي كبير با الهي لي ولو النبي قبين مر هدي حق الديدان ودين تصدبا uga weecdaan waxba nabinimadu caawin mayso ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء عاون ميسو دنك كله إلهي سبحانه وتعالى لبد مرو خير قبو تلماميا وأن يجا النبي دالين نبي نقبين لكن يجو نقضي دات خير قبا oo
iyagu midina nebi dhashay midina nebi korisay laakiin wanaagooda laguma tilmaamin inay nebi dhashay oo qura ama inay nebi korisay waxa lagu tilmaamay inay mowqif istaageen ah inay diintooda raaceen iyadoo imtixaanaadka ay soo mareen وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلهي وحكرته صالح الكسين يا بار رب الله سبحانه وتعالى امرأة فرعون فرعون هوين يديسي فرعون ومن أعتى أعداء الله فرعون ومن أكبر الطغاة إنه طغى أي إلهي كسفي فرعون وبغركي أمري قبائل داننا نرقل فرعون ونكبري وانتو أركو صعدا في ميل والبا ضدك أشيكتين إنه إلهي هي إنه ربي تخذ بدايي له أنا ربكم الأعلى ربي إنك الريانة ضدك هو صعدا في حاشية ديسي حاشية وزير ذي أنتم كل دويو مضحضة أيكو يري ما علمت لكم من إله غيري وملائكو كتل ماما يا عمد الإسكاليبي يا شعب ويني ملائي بوحلي ما علمت لكم من إله غيري إله أنا أدقى هين دين قرن مايو نينك هل كاتاغن أي هوين دينو بدأ ديني كهرت ماتا نينك موقف كايسلة تاغن قبيل لن وحي لين قورعية dadka rabbinimada u sheegtay ilaahnimada ay haweenaydii ku tala gashay inay ishortaagto oo ay rabbi doorato markaas ilaahay baraysaa waxay leedahay rabbi ibni li indak baytan fil janna ilaahu adiga agtaada fircoon agtiisa maaha wuxuu fircoon nimco iyo haystay oo dhan uma muuqato فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون والميدة نركي إننا نقول يا هي ملك مصر بغرطو يدي أردن وحق الصور النعمان هستم يدا نركي ميدة نركي بولاي هي وهذه الأنهار تجري من تحتي وحوبية هوستيد الدريرية هوين إذن laguma qaldin inay qasri ku nooshay laguma qaldin boqor inuu qabo may qaldin in wabiyaad hoosteeda dareerayaan laakiin waxaasoo dhan waxay ka dooratay ilaahay jaarnimadiisa waxay mufassiriintu yidhaahdaan intaanay guriga sheegin jaarkay sheegtay rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna ilaahow agtaada guri iga sii bay leedahay jannada haweenayda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo nebi ahayn ayaa ilaahay kitaabkiisa qur-aana ku xusay oo ku tilmaamay mowqifkeedii iyo siay diinta ugu sugnaatay haweenay labaad baa ilaahay qur-aanka ku sugayaayo kuwan ka mida waa imra'a waa maryam qur-aanku sida badan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu dadka ka warramayo ambiyada mooyaane waxay yidhaahdaan magacyada badane kale ma sheego maalan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhowr jeer buu qur-aanka magaciisa ku qoray wixii saxaabo nebiga la noolaayoo dhanna zayd oo qura ilaahay ka magac dhabay wixii qabaa'il carbeed ee meesha deganaa oo dhan quraysh qura ilaahay mar qura magac dhabay liilaafi qurayshin ilaafihim qurayshoo dhowr iyo 20 sannadood ay nebi maxamed ishayeen calayhi salaatu wasalaam haddana mar qura magacooda qur-aanku tilmaama qur-aanku asmaada inta badan ma qiimeeya wuxuu tilmaamaa maxay afcaasha sidii kii waxaan sameeyey gabadha caynka yeeshay kii caynka yeeshay maryami waa gabadha keliya qur-aanku magaceeda tilmaamay tilmaam qura maaha dhowr iyo 20 jeer mararka qaarkood culimada qaar ay yidhaahdaan 30 baar bay ka tallaabaysaa magaceeda ilaahay si cad u tilmaamay maryama ilaahay magaceeda waa ku celceliyey qur'aan la akhriya ilaahay magaceeda ka yeelay qur'aan ilaahay lagu caabudo inay noqoto maryama ilaahay wuxuu ku sifaynaya subxaanahu wa tacaala
inay ahayd gabadh saalixada oo dhowrsoon. waxaa ilaahay ku sifaynaya dhowrsanideedaasi iyo cibaadadeedaasi karaamaadkeeda ilaahay qur-aanka ku tilmaamay. waa gabadha iyadoo masaajidka iska joogta xagga rabbi cunno looga keeni jiray, ilaa nebigii hayee zakariya uu weydiiyo waxaan xagga kaaga yimaadaa, ay tidhaahda in allaha yarsuqu man yashaa. ilaahay baa cidduu doona arsaaqa ay ugu jawaabaysay. hunaalika dacaa zakariya rabba baa ilahay yidhi. halkaa markii uu zakariya arkay haweenaydan iyo waxa karaamo ka dhacday buu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryey. haweenaydani waa haweenayda ilaahay ilma siiyey iyadoo ninba arag. waa nooc min alimtixaan. dhan marka laga eegana waa nicma, waa imtixaan. gabadh cibaado ku caanbaxday oo masaajid joogta maruun la arko iyadoo calooshu buuranta oo ur leh. imtixaankaasaa ku dhaco dad oo dhammi ceebaynayaan. markaasoo la leeyahay waxa kanaad wadataa waa maxay? ilaahi subxaanahu wa tacaala laakiin iyana qur-aanku ku magac dhabay kuna tilmaamay allatii axsanat farjaha inay tahay tii dhowrsanaatay, cafiifadda noqotay. idan waxa aan tilmaamayn oo dhammi waa dad la imtixaamay. dadna imtixaanka waa ku guulaysteen, dadna waa ku guuldaraysteen. haweenkaasi afarta ayaanu sheegnay, labana waa guuldaraysteen, labana waa guulaysteen. ambiyadaa labadee aynu sheegnay waa ku guulaysteen. qur-aankana imtixaanaad tiro badan oo kale ilaahay kaga warramaya khalqi badan. waxaan rabaa dersigoo kooban inaan tilmaamo. noloshan aynu noollahay waa imtixaan. intaynu nool lahay imtixaan baynu ku jiraynaa. imtixaankeennuna waa kala nooc, isku weji qura ma leh. badh baa xanuun lagu imtixaami oo mushkiladiisu xanuun noqon, oo la eegayaa bal intuu sabri karo iyo intuu ilaahay ku xidhnaan karo isagoo abuka, iyo intuu adkaysan karo. badh baa lagu imtixaami caafimaadkuna waa imtixaan kale, bal intuu ilaahay u mahadnaqi karo iyo caafimaadkan uu haystaa inuu nicmo yahay intuu qiri karo. badh baa lagu imtixaami faqri iyo gacantoo madhan, oo la eegayo bal intay sabri karaan iyo iyagoo fuqaraa intay ilaahay ku xidhnaan karaan. badh baa lagu imtixaamay haninimo iyo xoolo, oo la eegi inay iyana dariiqa saxa ku sugnaadaan oo xoolahaasi xuquuqdooda ay mariyaan. waayo xooluhu waa waxa yaabaha aakhira le laba su'aalood: min ayna jit, minayn, xagaad ka keentay, min ayna laka haada, xagay kaa soo galeen, iyo xagaad ku bixisay. laba su'aalood. innaguse nicmo ballaadhan baynu isaga haysanaa. waa nooc min alibtilaa. waxaan leenahay noloshaynu joognoo dhammi nooc kasta ha noqotee qaar baa lagu imtixaamay ubad tiro badan oo la eegi bal waxay ka yeelaan iyo siday u koriyaan iyo u rabeeyaan. qaar baa lagu imtixaamay in ubadba la siin waayo, oo la eegi doonaa baliyana ubadla'ida siday yeelaan iyo siday u sabraan. idan noloshu waa imtixaan. darsigeenna oo koobani wuxuu sheegayaa imtixaanka iyo mawaaqifta bini aadamku meeshaytay. ilaahay wuxuu inoo tilmaamay nebi ibraahim in la imtixaamay, oo qur-aanku imtixaanna waa weyn uu kaga warramayo. imtixaankaa dabka lagu riday, imtixaankaa magaaladiisii laga saaray uu hijrooday, imtixaankaasi ilmihiisii la yidhi gowrac, imtixaankaasi la yidhi ilmaha iyo hooyadood markay yaraayeen meel cidlo lama degaa intaad geyso maka iskaga tag, oo islaan umula oo ilmo yar sidata intaad cidlo dhigto ka dhaqaaq la yidhi. imtixaanka ah in haweenaydiisii kale lagu imtixaamay in boqor kaba qaado oo saara boqor intuu hungureeyo ibraahimna cidlo la diro, boqorkaasina uu xoog ku qaato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhowro uga ilaaliyo.
إبراهيم امتحانك قرآنك كغيا لا آدو بدين لكن وحن قدن لها وندرس كنودن إننا هل تصالوا ونستسينوها نرشنين امتحان تاي نبي إبراهيم يا نبي إسماعيلين كم يكون كوجو ليستي هدين ربنا إنه دمر أجننا وده orang lain yang kuat si Nabi ya, yang nunggu Nabi yang manihin, rag bay yang ragna manihin. Orang kaya ni lah ikut ilmamai dumar lah itahamai ya. وسورة التحريم لحد مرايك والرميسو لبا لتلماما فقد سغت قلوبكما إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما للا يسهر نغضا وهو عتاره وحبسي عائشة وطوبتك يا ناس وهو علي هي أفر تسالة لغسيي والله بنا يقول نبي قبان أهل النار نغضين لبنا iyagoo midna uu gaalba qabo oo aanu nabi qabin laakiin nicmada adduun ku nool oo guri boqortooyo joogta imtixaan u aragtay oo waxa uu isagu ku faanayo dhadhan aanay u sameeyay diinteedu dhadhan u sameysay oo ilaahay weydiisanayay inuu guri jannaad siiyo fircoon iyo imtixaanadiisana in ilaahay ka nabad galiyo midna iyadoo inana ilaahay imtixaamo ku itixaamay inay maxay la ceebeeyo waa bariyay inay uur la soo kacday iyadoo ninna arag iyadoo cibaado ku caanbaxday iyadoo karaamaadkeeda la ogiyo la garanayo haddana inay dhacday in la arkay iyadoo caloosha wax ku sida oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku itixaamay marka waxaan sheegayo ku soo koobaya wax weeyaan dunidan imtixaan baa u joogtaan aakhirana inuu soconnaa jawaabta kama dambaysta ana aakhiraynu helaynaa jawaabaha qaarkoodna adduunka intaynu joognaa baynu helaynaa abaalmarinada qaarkood haddaad imtixaanka ku dhacdo ilaahay adduunka intaad joogteen jaanis kale ku siiyo waa la arkaa waxaase kaloo la arkaa ciqaabaadka qaarkood in dunidaba lagugu mariyo waxaa kaloo la arkaa abaalmarinada qaarkood inaad dunidaba ku hesho idan ibtilaagu waa tiro badan yihi qur-aanka haddaa nadrada caynkaasa ku akhridaanna waxaa arkaysaan ambiyo badan oo ilaahay imtixaan kaa mariyey مثل النبي يوسف يوحى امتحان لمريا ذكس صغير ولا الذين نعى قد لقول ردي لا يبسدي الضان نقضي قبلهم قريسي بحصدي اسكت ضيضي كفصته كعرري حبس قالي هذا أخيرا لقوا أبا المريين مدح لوغا دقوا مضبا بحصر دبوا ابتلاء إذا نلاشا نوا ابتلاء ابتلاء سيدا وقوليستان بين نلاشا كحرانتي أنا قف دمران هو وحبق عنتي يقوم يتشرين تصالح وحاكو غفرا آسيا أياكو غفرا امرأة فرعون قف ولبن نفتي سيساقا حتى قوان كذا نلي إن يربانها مريم غفرا هوين وين والله قبيبانها قوة ساقطي با إلهي تلماما غفرا إذن تصالياش القرآن كوا كبديني لكن وحن الدن لا يون ثبات كدين إنه يهي وحقفك مسلم كان لو قبه هي امتحانك كوبه ما كودون يبها النقطة حديث النبي كسر صحيح مسلم كوا حكويا لأن النبي كده عيسى جري اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ابن ماجنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلبك بني آدم كقديو قلبك قدين تكسر إله قلبك بني آدم كقديو قلبك طاعة تكسر نبي محمدنا دعوين كيسي بكمدها دعوين كيسي وحكمدها صلاة كاستمرك كبحه إنه إلهي بريئي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله يقصك طريقة هي عبادته هي مهدنا غاقة قف سوتش هذا نقومرك وكنت لقليا نلشن وكنت رأينا امتحان تهي امتحان كان قوة دعا
iska ilaalinaya inuu ka mid noqdo. marar badan waxaa laga yaabaa inaad adigu doorashada lahayn beejka kugu soo baxaya imtixaanka ka mid ah. ma mid caafimaad baa mise waa mid xanuun? ma mid ladnaaneed iyo dhaqaalaa mise waa mid faqri? ma mid nabadqab iyo degaanbaa mise waa mid nabad la'aan iyo colaadeed? imtixaanka ku imanaya noocuu yahay ilaahay baa garanaya, laakiin adigu jawaabtaad bixinayso ayuunbaad abaalmarka ku helaysaa. marka waxaa naftayda iyo tiinaba kula dardaarmaya, xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaano, xaqu markuu inoo caddaado aan ku sugnaanno oo nafta ku xijinno diinta inay haysato mahma kaanat الظuruuf. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وعليهم أولاد الشيخ أنه دعاء جالس مع السلام. أن dadku in badan ducay dalbadaan. ducana nabigu wuxuu tilmaamay qofka muslimkee ilaahay ka baqay gacmaha kor u taaga, in allaha xayiy, ilaahay inuu xishoodo oo ka xishoodo inuu faramadhnaan diro. horta kalsooni ilaahay ku qaba, baryadiisana inuu ka aqbalayo ku kalsoonaada. haddii mashkiladu ku qabato, nabi maxamed wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam, rabbi intuu soo dego habeenka xaggiisa dambe inuu yidhaahdo ma jiraa cid wax weydiisanayso aan wax siiya, ma jiraa cid ibaryaysa waa baryadiisa aqbala. aan intaynu kacno habeenka in niskiisa dambe ilaahay bari noo cibaadaysana ilaahay wuu ka aqbalayaa. kalsoonidaas iyo ku qab ilaahay subxaanahu wa tacaala, allah araxmaan araxiimka ah, kalsoonidaa ku qab, wuu kaa aqbalaya, waa kaa ajiibaya. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaaila baaila warzuqna ijtinaaba. ilow jidka xaqaa nagu sug, ilow diinta nagu dil, ilow khaatimadayada khayr noogu khatib, ilow intaanu dhallee dhibto haysato dhibta ka fuji, inta naga luntay ilaahay uu noo wada hanuuni, inta bugta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryay inuu caafimaad khayr qaba siiyo, inta caafimaad qabtayna ilaahay u ziyaadiyo, inta dhib kale haysatayna ilaahay dhibta ka farajo, inta colaada dhex taallayna colaadda ilaahay ka dhex qaado, guryaha dumaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala guri muslim oo hagaagay alla ka dhigo, intiina dhashee dhimatay in alla u naxariisto, innagana in rabbi inooga daba naxariisto. dadka muslimiinta caam ahaantoodba ilaahay dembigooda dhaafo una naxariisto kuwoodii dhintay. sala allahuma calaa muxamadin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.